Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maalin wanaagsan. Haddii aad rabto inaad wax noqoto noloshaada, waa inaad noqotaa sida gorgorka, balse weligaa noloshaada ha noqon sida baqbaqaaqa. Waayo baqbaqaaqa aad buu u hadlaa, laakiin aad uma duuli karo. Halka gorgorku wax yar hadlo, balse aad buu u duulaa. Gorgorku waxa uu awood u leeyahay inuu cirka taabto, halka hadiyadda baqbaqaaqa haysto waa inuu hadlaa. Gorgorku waa boqorka shimbiraha. Maanta waxaan idinla wadaagayaa 7 cashir oo aan ka baran karno maskaxda gorgorka. Gorgorku waa maskaxda ugu awoodda badan adduunka, waxa uuna ku nool yahay nolol aad u wanaagsan. Intaana bilaabin muuqaalkeena, waxaan kaa codsanayaa haddii aad tahay saaxiib nagu cusub inaad janaalka subscribe, like, share iyo comment. Haddii aad tahay saaxiibada hore noola joogan, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka inoo qurxiso oo like iyo share iyo comment. Mahadsanidin. Maanta cashirka koowaad ee aan gorgorka ka baran karno. Gorgorka kaligiis ayaa duula mar walba, waayo gorgorku wuu ka duulis dheer yahay dhammaan shimbiraha kale. Gorgorku waxa uu la duulaa gorgor kale. Cashirka aan ka baran karna ayaa ah in mar walba oo aan nolosheena ka fogaana dadka hanka yar oo mar walba jecel inay dib kuu dhigaan. Waayo mar walba oo aad waqti ku bixiso qof kaa han yar, waxa uu sabab u noqonayaa inuu kaa dhigo sidiisa oo kale qof han yar. Cashirka labaad ee aan ka baran karno gorgorka. Gorgorka aragtidiisu aad bay u caddahay. Gorgorka aad bay u xoog badan yahay. Waxa uu wax ka ugaarsan karaa meel u jirta 5 kiiloomitir. Marka uu si cad u arko bartilmaameedkiisa iyo yoolkiisa, si kasta ay u adagtahay waxa uu ugaarsadaa yoolkiisa oo uu gaadhaa yoolkiisa. Cashir aad u weyn oo adiguna aad ka baran karto, taasoo ah in aragtidaadu caddahay oo aad diiradda saartid sida aad ku gaari lahayd hadafkaas. Si kasta ay u adagtahay, waa inaad diiradda saartaa hadafkaas oo aadna ku sabartaa joogtaysana ilaa aad ka gaarayso, waayo gorgorka marna kama hara hadafkiisa ilaa uu xaqiijiyo. Cashirka saddexaad ee aan ka baran karno. Gorgorka weligiis ma cunin wax dhintay. Gorgorka weligiis ma ugaarsado neef baqtiyay. Mar walba waxa uu ku raaxaystaa xoolaha nool. Halkan gorgorku waxa uu ina barayaa in wixii ina soo maray ay dhinteen. Tamartii hore ee tagtay intii aad ku mashquuli lahayd noloshaada koowaad ee soo socoto oo aad maanta fursadda haysato diiradda saar. Wax walba oo xasuusihii hore ee kugu adkaatay inay ku dhaafaan ku dheh nabadgelyo. Ha joogaan halka ay ka leeyihiin noloshaada. Tagtadii shalay meel ha ka siinin waqtigaaga maanta, ha ku soo celcelinin waqtigaagii hore, waayo mar haddii tagtadu dhacdo, waqtiga kuuma soo noqonayo. Cashirka afraad ee aan ka baran karno gorgorka. Gorgorka aad ayuu u jecel yahay marka ay cimiladu tahay mid adag. Waxa uu xiiseynayaa marka daruuruhu duufaan yimaadaan. Marka duufaantu timaado, shimbiraha oo dhan way cabsadaan, balse gorgorka aad buu ugu raaxaysanayaa. Waxayna soo dhaweynayaa loolanka uu keeno marka dabayshu xoogga badan ee ku dhacdo. Gorgorka ayaa ka sii sareyso u duulayo. Cashirka nolosha ee ka baran karno maskaxdan, raadi fursadaha dhibaatooyinka ku jira. Qoraaga weyn ee lagu magacaabo Napoleon Hill ayaa sheegay in caqabad kasta oo weyn ay keento fursad weyn. Sidaas darteed, noqo sida gorgorka oo kale. U qaado loolanka oo wax ka baro oo garo fursadda iyo maanta haddii aad heshay inaad la kulanto tartan oo aad bilowdo inaad ka fikirto inaad mar walba oo fursad haysad caqabado kala duwan la kulmayso, balse weligaa ha ka gudbin caqabadaha yaryar. Marna ha isdhiibin oo ha ka cararin caqabadaha yaryar. Cashirka shanaad ee aan ka baran karno gorgorka. Waxa uu had iyo jeer ka soo saaraa cawska jilicsan buulkiisa si aanu ilmuhu gorgorka ugu raaxaysan. Sababtoo ah hadduu u raaxaysto waayadii hore, halkaas ayuu iska joogayaa, mana ka bixi kara meesha uu ku raaxaysanayo. Dadka inta badan ma fahmaan arrintan. Markasta oo aad ku sii jirto goobtaada raaxada, inta badan oo aad noqotaa qof caajis badan. Waa inaad ka baxdaa meelaha raaxada badan oo aad ku noolaataa xaaladaha adag. Waayo marka aad xaalad adag ku shaqayso ama aad ku kortay, wax badan ayaa ka fikiraysaa oo waxaad raadinaysaa xalkii aad ugu bixi lahayd una abuuran lahayd nolol ka qurux badan noloshan. Cashirka lixaad ee aan ka baran karno gorgorka. Gorgorka waxa uu tijaabiyaa awoodda gorgorka kale intuu ku kalsoonaanin. Tusaale, haddii gorgorka dheddigga ay la kulanto gorgorka labka ah, waxa ay tijaabisaa awoodda ragnimo ee gorgorka labka ah. Inta aysan la midoobin, waxa ay soo qaataa laan geed ah wayna la duulaan iyada oo gaaraysa halka ugu sarreysay duulis. Markii ay tagto meesha ay rabtay ayay soo deysaa laantii geedka. Haddii uu gorgorka labka ah laanta qabto intay dhulka ku dhicin, waxa ay siinaysaa kalsoonideeda. Haddii uu ku guuldareysto, wax kalsooni ah ma siinayso. Cashirka aan ka baran karna ayaa ah inaan ka fiirsano cidda aan la shaqaynayno ama cidda aan rabno inaan kalsoonideena siino oo aan nolosha la wadaagno. Cashirka ugu dambeeya oo aan ka baran karno gorgorka. Gorgorka marka uu jiro da'da 40 jirka ah oo uu duqo, waxa uu qaataa go'aamo adag.
go'aamadaas oo sababi karta inuu noloshiisa maalintaas soo gabagabow ama uu noloshiisa ku sii wato 30 sano oo dheeri ah oo rafaad iyo xanuun ah. 30 sano oo dheeraad ah. Hawshani waxaa ku lug leedahay hawl aad u xanuun badan oo ah inay afkeeda ka soo baxdo oo cidiyaheeda siibato si ay kuwa cusub u koraan. Hawshan oo dhan waxay qaadanaysaa ilaa 5 bilood si loo dhameystiro casharka nolosha aynu ka baran karno maskaxdan. Waa haddii aanu xanuun jirin wax faa'iido ah ma jirayso. Dad inaga mid ah ayaa rabaan guul ama isbeddel sameeyaan, laakiin haddii aan naf hurin, shaqo adag, niyad jab iyo qalbi jab aana jirin, suurtagal ma ahan inaanu gaarno guul ama isbeddel. Waa inaan diyaar u nahanaa inaan isbeddelno oo marka qaarkood laga yaabaa in aad xitaa baahano inaad tallaabooyin ka sii qaadno go'aamadeena. Go'aamadaasoo aan ku abjari doono ama aan ku soo gabagabeyn caadooyinka xunxun ee burburiya nolosheena, taasoo mar walba dib u dhigayso go'aamadeena.